التحيات لله والصلوات والطيبات ولمرنا ما اسويدي سقابكي وكو يمدي iyo sirta ka dambaysa hadaba muuqaalkan yarka ila dhamayso si aad u ogaato ataxiyaadku meesha uu ka yimiday iyo sirta ka dambaysa fadliga uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenkii la dheelmiyay ee markaa malaku jibriil israaceen goortii ay marayeen samada toddobaad malaku jibriil waa uu ka haray oo wuxuu ku yiri ani meeshaas ma dhaafi karo nabi maxamedow dadna nabiga sallallahu alayhi wasallam ee samadii kor buu uga sii baxay wuxuu sii maray baa la yiraahdaa shajaratul muntaha ama sidratul muntaha geedda la yiraahdo deedna wuxuu uga sii gudbay baa la yiraahdaa jannatul ma'wa deedna wuxuu sii gaaray baa la yiraahdaa maqaamul mahmuud maqaamka la yiraahdo oo markaasi meel makhluuq ilaahay uu abuuray meesha ugu sareysa markaasi ay u gaaro halka markii uu joogo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka yaabay ama uu ka fikiray sidee ilaahay ayuu hor joogaayo markaas uu la hadli doonaaye sidoo ilaahay u salaamaya ilaa inagu makhluuq marka aynu nahay waxaan isku salaami jirnay nabadda ilaahay ama naxariista ilaahay korkaaga ha ahaato ilaahay isagaaba midkii naxariista nabadda lahaa sidee marka u salaamaysa ilaa isagaaba assalaam goortaas isagoo yaaban ayaa ilaahay wuxuu ku ilhaamiyay ataxiyaadka ayuu ku ilhaamiyay markaas nabigu qabsaday sallallahu alayhi wasallam attahiyatu lillah waxa la waxa salaan laysa salaamo oo dhan ilaahay ba iskale wassalawatu lillah at-tayyibat يعني لله waxa la wax wanaag oo dhan ilaahay ba iskale duruq badan ba taxiyaadku ku yimaadayay wax walba oo wanaagsan ayuu ilaahay u tiiriyay ilaahay ba iskale isagoo marka saad si wada ayaa ilaahay uu jawaabay deedna markaas uu ku yiri assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh nabigi moogta ilaahayow naxariis iyo nabadgeliyo korkaaga ha ahaato markaas nabigu farxay sallallahu alayhi wasallam wuxuu xaqiiqsaday oo ogaaday in naxariista ilaahay hadii ay korkiisa noqotay aan dib loo cadaabin halka markay marayso ayaa haddana nabigi mar labaad uu qaatay waxa xasuusay